kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Cabdiraxmaan Ciro oo qaramada midoobe u gudbiyay dalab culus oo cajiib ah. Tallaabada uu qaaday Cabdiraxmaan Ciro haddaba maxay tahay? Cabsida cadawga Somaliland ay wajahayaan oo xog laga helay Djibouti oo qarka u saaran tallaabooyin waaweyn oo halis ku ah in ay ka bilowdaan gudaha Somaliland. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay mucaaradka oo weli aamini la qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud ee uu wado iyo sidoo kale tallaabooyinka beesha caalamka. Shuruudo hor leh oo lagu xiray wadahadalka hadda socda. Ciidankii Laftagreen oo howlgallo lagu beegsaday saldhigyadii ay ku sugnaayeen ee duleedka Baydhabo oo ciidamadii maamulka Koonfur Galbeed ee Aadan Madoobe ay gaareen. Iyo Iran oo mar kale xirtay marinka Hormuz iyada oo sabab uga dhigtay tallaabooyinka Israa'iil ay wado. Wararkii ugu dambeeyay caalamka sidoo kale waa daawan doontaan, balse marka hore si aan faahfaahinta u guda galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso, like saarto, meel fog gaarsii, qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu kusoo gudbino adigoo rukumanaya barteena YouTube channel. Sidoo kale fura gambaleelka digniinta aragtidana qaybta hoose ee faallada ama commentiga inoogu reeba. adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi, adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka. Markasul Ihsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac. Markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar, xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflixeen, arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. Si aad uga faa'iidaysato fursadan qaaliga ah, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. waa hagaaga aynu ku bilowna waxaa warar hadda soo baxaya ay muujinayaan tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee loo qaaday dhaqdhaqaaqyada Cabdiraxmaan Ciro iyo dalabka culus ee uu u gudbiyay qaramada midoobe. Waxaa maanta oo 22 bisha June ku beegnayd la ogaaday in uu Cabdiraxmaan Ciro gudbiyay dalabkii ugu weynaa kaasi oo la xiriira dhaqdhaqaaqyada ay cadawga Somaliland ka wadeen gudaha qaar ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee Somaliland, iyada oo la ogaaday in laga dalbaday Ciro tallaabooyinkaasi in uu ka gudbiyo dacwad culus oo xukuumadda golaha wasiirada ee Somaliland ay gudbinayeen arrimahaasi. Waxaana ugu dambeyn madaxweynaha Somaliland Ciro uu gudbiyay codsi iyo dalab la xiriira in ay qaramada midoobe tallaabooyin ka qaado cadawga Somaliland, kaasi oo ku saabsanaa in ay si degdeg ah u qaadaan tallaabooyin ka dhan ah cadawga gudaha ee Somaliland oo ka soo horjeeda deganaanshiyaha iyo mabaadi'da asaasiga ah ee Somaliland lagu dhisay, taasi oo muujinaysa in markani ay dhaqdhaqaaqyadu sii kordhayaan. Xogaha la helayo ayaa muujinaysa in ay markaasi tallaabooyinkan sii xoogeystaan, waxaana ay mar kale dhinacyadu qaadeen tallaabooyinkii ugu dambeeyay oo ku saabsan dooda hadda taagan ee arrimahan la xiriira. Waxaa wararkii ugu dambeeyay tallaabooyinkani ay muujinayeen in la qaaday qaramada midoobena loo gudbiyay dacwad culus oo ku saabsanayd arrimaha la isku hayay iyo doodii taagnayd. Balse mar kale waxaa hadda socda dhaqdhaqaaqyo aad u culus, iyada oo xogaha la helayo ay muujinayaan in tani loo qaadayo tallaabadii ugu weyneed oo ay Somaliland qaramada midoobe dhankeeda markan garab siyaasadeed uga helayso. Tani waxay ka dhigan tahay mar kale doodii taagneed oo lasii laba jibaaray ayaa lagu yiri sidoo kale xogta. Waxaana wararka la helayo ay intaasi ku darayaan in markan qaramada midoobe ay u qaadi karto tallaabooyinkan si degdeg ah, iyada oo soo afjaraysa dhaqdhaqaaqyada waaweyn ee aadka u culus iyo sidoo kale xogaha la xiriira tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee xukuumadda Ciro markaasi ay u qaadayso arrimahani. Xogta la helay ayaa muujinaysa in ay tani qayb ka tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ku saabsanaa waqtiyadii ugu dambeeyay doodihii taagnaa. Sidoo kale qaabkii loo soo afjari lahaa arrimahan ayaana loo gudbiyay qaramada midoobe, iyada oo la ogaaday weliba inay xiisada salka ku hayso arrimaha la xiriira tallaabooyinkan taagan, iyada oo weliba hadda la ogaaday in ay markaasi qaramada midoobe aqbashay dooda Cabdiraxmaan Ciro iyo dacwadda uu gudbiyay, taasi oo ay markaasi u muuqato
xaaladda culus ee cadowga Somaliland ay geli karaan marka loo eego sida ay wax u socdaan, waxaana ay mar kale qarka u saaran yihiin in ay markaasi ku dhawaaqaan go-aankii ugu dambeeyey oo arrimahan dooda waaweyn la xiriira muujinayay, iyada oo aad laisku hayay tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo la xiriira weliba dhaqdhaqaaqyadan xasaasiga ee hadda socdana ay muujinayaan in si gaar ah loo qaadayo mar kale tallaabooyinkan iyo doodii ugu weyneed ee taagneyd dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay. Somaliland ayaa hadda u muuqanaysa mid qaramada midoobay ka helaysa jawaabta dalabkan Cabdiraxmaan Ciro uu u gudbiyey. markaana dhinaca kale haddii aynu eegnana mucaaradka Muqdisho ayaa waxa ay wadaan weli tallaabooyinkii ugu dambeeyey, iyada oo ay aamini la'yihiin qorshaha beesha caalamka iyo Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira doorashooyinka nooca Xasan Sheekh uu markaasi doonayo. waxa ay qaramada midoobay ama wakiilada caalamka ee jooga Muqdisho u gudbiyeen horay codsiyo taasi oo la xiriirtay sidii loo soo afjari lahaa tallaabooyinka waaweyn ee la xiriira doodaha taagnaa waqtiyadii lasoo dhaafay. waxaase hadda la ogaaday in ay markaasi wakiiladii caalamka ay yihiin kuwo doonaya in lasoo afjaro xiisadan, balse xaaladda siyaasadeed ee taagan iyo dooda aadka u culus ee la xiriirta ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dhinacyadan ayaa ka dhigay xaalka mid sii adkaada, iyada oo waqtiyadii ugu dambeeyey meel xun ay gaareen doodaha aadka laisugu hayay tallaabooyinkaasi oo u muuqanayay kuwo aan markaasi si degdeg ah kusoo afjarmaynin, iyada oo weliba la ogaaday in ay mucaaradku ku adkaysteen qodobada qaarkii in aan laga tanaasuli karin oo ay shuruudo adag la yimaadeen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana beesha caalamka iyo xubnihii joogay Muqdisho oo Turkiga ay ugu horeeyaan dhankooda waxa uu isku dayay in uu ku cadaadiyo in ay la shaqeeyaan oo lasoo afjaro doodan. haddana waxaa suurtagalnimada dhaqdhaqaaqa socda iyo tallaabooyinka dhinacyadu ay isku hayaan ay noqotay mid aan si degdeg ah ugu dhaqangeli karin qorshaha ay soo jeedisay dowladdiisu, waxaana ay tani ka dhigan tahay tallaabadii ugu weyneed ee hadda loo qaadayo dhaqdhaqaaqyada xasaasiga ah iyo go-aanada ku saabsan arrimihii ugu dambeeyey ee dooda hadda la xiriirta qorshaha dhismaha heshiis doorasho oo rasmiya oo laisku raacsan yahay ay tahay midii ugu dambeysay, iyada oo weliba ay xogaha helayaan dhinacyadani, iyada oo ay hadda u muuqato inay tahay doodii ugu weyneed. mucaaradka Muqdisho waxa ay keeneen nuuc doorasho oo ay isku raaceen guddiyadii farsamo ee maalmihii lasoo dhaafay shirarka lahaa, ayaana ugu dambeyn waxay ku heshiiyeen qaab ama nuuc doorasho oo ay sheegeen in ay ku heshiiyeen dhinacyadu laguna soo afjarayo doodii doorashada ee taagneyd, balse taasi qudheedu waxa ay dowladdu ka keentay dood aad u culus iyo ismariwaa siyaasadeed oo u muuqda weli in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisu ay ku qanci la'yihiin nooca doorashada ee mucaaradku ay doonayaan, taa oo ah dood weli furan iyo dhaqdhaqaaqyo aad u culus oo ay dhinacyadu isaga soo horjeedaan. weli waxaa socda tallaabooyinkii ugu dambeeyey, waxaana xogaa hadda la helayo ay muujinayaan in mucaaradku ay dhaqdhaqaaqyadan wali wadaan, iyada oo loo eegayo doodaha taagan iyo dhacdooyinka waaweyn ee diiradda lagu saarayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee arrimahan ku salaysnaa. waxaa tani sidoo kale ay u muuqataa in ay mar kale diiradda saari doonaan dhacdooyinka waaweyn ee arrimahan ku saabsan, iyada oo ay si la mid ah taasi hadda u muuqanayso in ay xoog isugu geyn doonaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey iyo tallaabooyinkii ugu waaweynaa, iyada oo ay u eegayaan xaaladahaasi soo afjarista iyo dhaqdhaqaaqyada la xiriira. waxaa xukuumadda Muqdisho ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo mucaaradku ay ku dhaliileen tallaabooyinka ay qaaday, shuruudo adag ayayna ku xirayaan mar kale wadahadallada iyo in lasoo afjaro dooda taagan ee arrimahan ku salaysan ama dhinacyadu ay isku hayeen waqtiyadii ugu dambeeyey. markana dhinaca kale haddii aynu eegno ciidankii madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Laftagareen ayaa howlgallo lagu beegsaday waxay ka dhaceen duleedka Baydhabo, iyada oo xarumihii iyo goobihii saldhigyada u ahaa ay la wareegeen ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda
ee iskaashanaya. waxaa magaalada Baydhabo duleedkeeda ka dhacay howlgal culus oo uu hogaaminayo ciidanka xoogga dalka saraakiil ka tirsan, waxaana dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee loo qaado howlgalkaasi iyo tallaabooyinka ciidan ee socday waqtiyadii lasoo dhaafay intaba ay noqdeen kuwo looga dhabeeyay qorshaha gaarka ah ee ku saabsan howlgalka, laguna soo afjaray tallaabooyinka waaweyn ee ku saabsaneyd arrimihii ugu dambeeyay ee loo eegayo dhacdooyinka tallaabadan loo qaadayo. xukuumadda ayaa waxa ay markaasi isku dayday in ay soo afjarto ciidankii uu watay Laftagareen, balse isdiidooyin waaweyn oo horey u jiray iyo tallaabooyin ciidan oo ay dhinacyadu qaadeen ayaa abuurtay in xaalku uu sii adkaado. ugu dambeynse Aadan Madoobe iyo ciidankiisa ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin lagu soo afjaray ciidanka xukuumaddii ka horeysay tan hadda Aadan Madoobe ama maamulkii Aadan Madoobe ka horeeyay ee Laftagareen uu hogaaminayay. ciidankii Laftagareen ayaana howlgallo culus oo la sameeyay ugu dambeyn lagu soo afjaray, taasi oo ka dhigan dhaqdhaqaaqyadan mid sii kordhisay. waxaana ay ciidamadu ku sugan yihiin saldhigyadii iyo fariisimihii ciidankii Laftagareen oo ay qudhoodu dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ay ka bilaabeen dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay, taasi oo ka dhigan mid sii xoojinaysa dhaqdhaqaaqyadan kala duwan ee arrimahan la xiriira. ugu dambeyntii haddii aynu eegno markana wararka caalamka, Iiraan ayaa mar kale waxay qaaday tallaabo ay ku xirtay marinka Hormuz iyada oo dhowr sababood u sababeysay arrimahaasi. taliska sare ee ciidamada Iiraan ayaa ku dhawaaqay inay mar kale xireen marinka Hormuz iyaga oo ku eedeeyay Mareykanka iyo Israel inay ku xadgudbeen heshiiskii xabad joojinta ee dhowaan la gaaray, kaas oo la filayay in uu yareeyo xiisada ka taagan bariga dhexe. war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Iiraan ayaa lagu sheegay in go-aanka lagu xiray marinka uu ka mid yahay tallaabooyinka ay Iiraan uga qaadayso burburinta heshiiska ay ka baxeen Israel iyo Mareykanka. waxa uu yimid kadib markii sida ay sheegeen la jebiyey qodobada muhiimka ah ee ka midka ah heshiisyadii lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalada iyo weerarada ka socda gobolka. Iiraan ayaa si gaar ah ugu eedeysay Israel inay sii wado duqeymaha ay ka fulinayso koonfurta dalka Lubnaan, inkastoo uu jiray heshiis xabad joojina oo la filayay in uu dhaqan galo maalmo ka hor. Tehran waxay ku dooday in weeraradaasi ay si toos ah u dhaawaceen dadaaladii diblomaasiyadeed ee socday. bayaanka taliska ciidamada Iiraan ayaana lagu sheegay in lagu xadgudbay qodobkii ugu horeeyay heshiiska, kaasi oo dhigayay in aan la weerarin dhulka Lubnaan. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin ay ku difaacayaan amniga gobolka iyo danahooda istiraatiijiga ah, taasi oo ka dhigan mid dood kale oo culus mar kale abuureysa. dhanka kale, Israel ayaa weli sii wada weeraro ay ka fulinayso qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan, iyada oo sheegaysa inay beegsanayso saldhigyo iyo xubno ka tirsan Xisbullah. arrintan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo inay heshiisyadii la gaaray ay burburaan. marinka Hormuz ayaana ah marin biyoodka ugu muhiimsan ee dhoofinta tamarta caalamka, waxaana mara qiyaastii 5 meelood meel saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee dunida laga isticmaalo. guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.